mayba deeq raashin ee la deersiyay ku dhawaad 30 qoys oo dan yare haanaasoo ka dhibaataysan duleedka magaalada Beledweyne Haronto gobolka Hiiraan kuriid dhawaantoon maamulka gobolka Hiiraan markii baaqi shalduun injeediyeen hay'ado intii gacan ku jeysadaan dadka ka dhibaataysan magaalada Beledweyne Haronto gobolka Hiiraan deeqdo raashinka yaa mayba bixiyay hay'adda SYBD ugu horeyntii mayba ku dooway Cabdirashiid Jabba oo ah wakiilka hay'adda SYBD ee gobolka Hiiraan hay'adda SYBD markii aragtay dhibaatada ka jirta deegaankan ceel jaalle waxaan si degdeg ah ama emergency ugu soo jawaabnay 30 qoys oo dad aad iyo aad u jilicsan ah dadkaas qoys oo ugu talagalnay raashin oo kooban dadkaas qoys oo sadan aad dhibaatadoodu gasnay marka kadib markaan maamulkii gobolka iyo hay'adihii samafalka maamuladoodii ay noo yimaadeen waxaan si degdeg ah ugu jawaabnay 30 qoys oo aad u dhibaataysneed qaarkood deegaankan dad badan ayaa ku dhintay gaajo awgeed macluul dhaxan marka si degdeg ayaan waxaan ugu jawaabnay 30 qoys raashinkooda oo aad isugu dheelitiran raashinkaas oo ka kooban bariis bur sonkor saliid iyo caleen shaah sidoo kale mayba ku dooway madaga hay'ado dabagalka ee gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cabdi Xiis bismillahir rahmaanir rahiim maanta waxaan joognaa deegaanka ceel jaalle waxaa soo gaarsiiyay hay'ad iyo dhalinyarada Hiiraan ayaa waxaa soo gaarsiiyay waxay contribution iska soo ururiyaan runtii 7 saac iyo bar shalay ayaan galnay xafiiska SYBD Beledweyne waqti kulul ahaday anagoo u sheegayno baahida haysato iyo rafaadka haysato dadka deegaan magaalada Beledweyne gaar ahaan deegaanka ceel jaalle runtii muddo 25 daqiiqo gudahooda ayay ugu soo jawaabeen hay'adaasi dan markaan ku laabnay xafiiska waxay noo sheegeen inay hayaan 30 qofood jeebkooda ayay iskaga galeen mushaarkii bisaas ay qaadan lahaayeen contribution ay iska ururiyaan ayaga xafiis ahaan xafiiska Beledweyne maanta jimcaha waan soo qaadnay waan keenay dadkii mudnaay ayaa la siiyo ka faa'iiday ugu dambeyntii mayba ku dooway madaga samafalka maareynta iyo masiibooyinka gobolka Hiiraan keenay maanta waxa la keenay raashin waxa keenay oo aan shalay tagnay SYBD waxaan tagnay xafiiska SYBD waxa u sheegay dhibaatada ka jirta ceel jaalle si degdeg ay ugu soo jawaabeen maanta waxay keenay 30 qoys raashinkood waa hay'adda waa NGO SYBD waxa kale garabkan u yaala raashin kale oo keenay ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan oo madaxu yahay gudoomiye u yahay Maxamed Cabdullaahi Buraal Raaxe waa ka ayagana waa keenay sidoo kale baaq waa ka soo jawaabeen waxaan leenahay waa arinku dayasho mudan Cabdinaasir Jeeg Ali telefishinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Beledweyne